waa tahay dhegeystayaal meel walbo aad caalamka ka jabtaan kusoo dhawaada barnaamijka deegaanka iyo bey'ada toddobaadkana waxaan kusoo qaadanaynaa haddii ilaahay yiraahdo in aanu waraysi la yeelana mid kamid a aqoon-yahanada beeraha ee jaamacadda banaadir waa maxamed cumar cabdulle kusoo dhawow barnaamijka bey'ada. waan ku dhawahay adigu waxaad tahay aqoon-yahan bartay cilmiga beeraha waxaadna aad ka baxday jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho iminka waxaad joogtaa magaalada jowhar bal waxaan jeclaan lahayn inaad horta sukaa sheegto intaan anigu sheegay in ka badan. maxamed cumar waa kuma? maasha allah, waa maxamed cumar, waa nin kasoo jeeda qoys beeraley ah, deegaankiisunu yahay magaalada jowhar gobolka shabeellaha dhexe. waxbarashadeeda dugsiga hoose dhexe waxaan ku qaatay jowhar, dugsiga sare waxaan kaga baxay magaalada muqdisho iyo jaamacaddaba jaamacadda banaadir sanadkii 2017 aan kaga baxay. masterkan waxaan ku diyaariyey qaab waxbarashada fog ee dhisanleen. waxaan kaga baxay takhasuska cilmiga deegaanka ee jaamacadda KIU ee dalka Cameroon. waa tahay bacdama adigu aad tahay bartay beeraha waxaan ognahay xilligan wadankiinu burbursan yahay bal waxaad inooga sheegtaa kuliyadda cilmiga beeraha ee wadanka ka jira iyo sida ay heerkooda waxbarasho ee xagga beeraha ay tahay anagoo og in jaamacadda banaadir ay leedahay qeybo kala duwan. maasha allah, barashada beeraha ee dalka waxay maraysaa heer wanaagsan. waxaa lagu bartaa dhammaan takhasusyada kala duwan ee beeraha marka laga reebo meteorology-ga. marka laga reebo inta kale waxaa lagu dhigtaa si wanaagsan ayaa loogu bartaa. waxaa lagu bartaa crop production-ka, seed science-ka, plant protection-ka, soil science-ka, dhammaan takhasusyada kala duwan waa lagu bartaa. marka jaamacadaha adduunka oo kale muddooyin badan baa la dhigtaa, qaarkood 5 sano ayaa la dhigtaa. bacdamaha dhanka beeraha marka laga hadlayana ay dhici karto in ay muddo yar oo kooban la barto, laakiin imise sano ayaa adigu aad markaa qeybta beeraha dhiganaysa ama lagu bartaaba? maasha allah, waa Soomaaliya waxay ka wanaagsan tahay wadamada deriska qaar kamid a beeraha waxaa lagu bartaa 3 sano, laakiin Soomaaliya qaasatan jaamacadda banaadir waxaan kaga baxnay 4 sano. marka dabcan inkastoo adigu aadan ahayn mas-uula xagga beeraha u qaabilsan ee jaamacadda, laakiin Soomaaliya waxaan ognahay 30 sano ugu dambeeyay burbur bay ku jirtay dhinaca beeraha iyo deegaanka iyo bey'ada intaba aad bay u burbureen. marka jaamacadaha wadanka laga baxo ictiraaf iyo aqoon aad u sareysa ama waxaan ula jeedaa darajada caalamka ay ka joogto oo kale waa mid heerkeeya? maasha allah, waxay maraysaa heer wanaagsan. burburkii kadib ka hor dadkii wax bartay iyo kadib waxaa badan yihiin dadka hadda bartay. maxaa yeelay waa bulshada way kortay, way bateen. awlan wadanka hal jaamacad kaliya ku taale, ummadda hadda jaamacado badan wadanka ku yaalo. qof waliba deegaankiisa wuxuu heli karaa waxbarasho oo u dhow. gobol kasta hay Soomaaliya waxaa ku yaala jaamacado, waxay fududeysa waxbarashada inay badato. dadkii burburkii wax bartay qaar hadda BD diyaariyey, qaarna waa master way diyaariyeen. xisaab ma leh inta malaayiin qofood samaysay takhasuska labaad iyo ka saddexaad burburkii. marka bacdama aad iyo aad maxamedow waxaanu ognahay cilmiga beeruhu dabcan waa mid aad qeybo kala duwan u leh. cilmiga beeraha ee haatan wadanka laga barto adigu balse jaamacadda banaadir baan si toosaan u yiraahdo laga bixiyo waa mid nooceeya? maasha allah, wuxuu iskugu jiraa 2 nooc oo ah qeyb oo barashada galaaska iyo qeyb baraatiga ah. jaamacaddu waxaan ku ogaa iyadoo haddana waa sii horumartay. waxay lahayd markaa xasuusto greenhouse oo baraatika jaamacadda dhabarkeeda ku yaalo iyo beer oo tijaabe oo ku taalla Afgooye oo dalagyada kala duwan lagu tijaabiyo. marka aan kasoo tago taas adigu saad ka warqabto dowlad goboleedyada iyo wadankaba laftarkiisa heerka beeraha iyo mataqaanaa wada shaqaynta ka dhaxayn karta jaamacadahu waa mid sideeya?
waxaa ka dhexey karta xiriir oo waxaa ka dhexey kara oo wanaagsan wuuna ka dhexeeya inta ogahay maxaa yeelay dowlad goboleedyada iyo maamulada hooseba waxay wakiil ka yihiin dadka doortay wakiil ka yihiin waxayna dadka ku dhiirigeliyaan si wax soo saarka dadka isku filnaansho u gaaro in dadka ay bartaan beeraha bartaan dowlad goboleed kasta waxay leeyihiin wasaaradda beeraha leedahay wasaaradda beeraha iyo jaamacadaha waxay iska kaalmaystaan in beeraleyda la tababaro shaqaalaha kale oo freshka in la tababaro marka xiriir wanaagsan ka dhexeeya dhanka tababarada shaqaalaha tababarka beeraleyda difaaca iyo soo kala jeedinta deegaanka si loo ilaaliyo marka aan kasoo tagno kuwaas adigu cilmigaad beerahaad baratay waa mid noocaya waxaan ognahay deegaanka minkaad joogtay jowhar oo kale waa dhul beeraad aada u wanaagsan oo beerashada iyo mataqaan dalagu ay ku fiican yihiin bal waxaan ku hormarayaa su-aasha ah adigu takhasuskaaga muxuu ahaa waa takhasusku wuxuu ahaa markii laga soo tago beeraha jaamacadda waxay ahayd waxaan ku baranay anaga si journal agriculture oo barashada beeraha guud laakiin wax specialization ma jirin oo sababaha jiro burburka dalka awgiis ma noo saaciidin qorshaha wuxuu ahaa in 2 sano ugu dambeyso ardayda kala leexdaan qayb u leexdaan horticulture qayb u leexdaan crop production qayb protection u leexdaan laakiin burburka dalka awgiis iyo helitaanka qalabada nooc kamid ah awgeed waxaan noo suurgeli weysa inaan takhasus kala qaadano laakiin waxaan bedelkeeda waxaa sameynay markii la kala jibinayay waxay qaateen arday weliba program gooniya anaga programka aan qolin jibinay iyo groupkii waxaan qolin jibinay waxay ahayd agriculture extension nidaamka fidinta beeraha marka iminka jowhar baa joogtaa jowharna waxay ka mid tahay meelaha dhulka beeraha beerashadiisa ku habboon marka bal waxyaabaha lagu beeri kara deegaanadaas adigu hadda joogto dalaga kasoo baxa maxay yihiin waxaa lagu beeraa dalagyo kala duwan iskugu jiro qaar qudaare geedaha waaweyn waa lagu beeraa waxaa lagu beeraa cash cropska sisinta oo kale waxaa lagu beeraa cerealska ugu horeyso galeyda masagada bariiska waa lagu beeraa waa inta soomaali lagu beero oo dhan jowras baxda marka aan dhahno galeyda oo kale waxay ka mid tahay dalaga ilaahay dhulkeena uu ku manaystay asagu sidee loo beeraa mase jiraa waxyaabo hortaagan in soo bixidiisa iyo beeristiisa ama cudur ku dhacay wax lamid ah oo xataa cayayaan cunayba ay ka mid noqon karaan galeyda waxaa lagu beeraa si wanaagsan galeyda inta badan waxay kala baxsan yihiin deegaan beereedyada Soomaaliya laba qaab webi iyo qaab waxa waaye oo lagu beero roobka lagu beero galeyda inta badan waxay u baahan tahay biyo ku filan u baahan tahay xilliga meelaha webiga lahayn waxa laga beeraa xilliga gu'a oo roobka si fiican biyo u galay dhinaca kalena waxa lagu beeraa dhinacyada webiga maro gu'ida laba dhinacba waa la beeraa galeyda hadda sanadkan way fiican tahay laakiin sanadihii hore 18 17 waxaa jira cudur adduunyada inuu ku faafay oo loo yaqaano fall arrowworm kaas aad u saameeyay beeraleyda hadda laakiin cudur weyn oo banaanka ka yimid jiro waa cuduradii hore deegaanka kaliya jiro inta beeraleyda waa tacaalayaan hadda marka cudurro inta badan waxaa jira iyo mataqaanaa cayayaan ku habsada beeraha oo keena inaanu beerihiiba bixin marka waxaa jirta sun loo isticmaalo cayayaankaas disho dadkuna aqoon uma laha oo beeraleydu waxay xataa qudhood u baahan yihiin in ay helaan aqoon xagga beeraha ah marka dadka noocaas oo kale ah sideebaad adinku aad wax ugu sheegtaan haddii aysa jirto daawo lagaga hortagayo cayayaanka disha sideebaa marka tayadeeda iyo inaanay dhibaateynaynin beerihii aad adinku ku ogaan kartaan maasha allah waxaa jiro dadaallo isxilqaane ee wadaan dhalinyaro beeraley oo isxilqaantay urur waxaa jiro oo beeraleyda dhalinyarada beeraha ka baxday oo rag iyo dumar iskugu jiro iyo urur waxaa jiro gabdhaha wax bartay ee beeraha bartay oo saga loo yaqaano
Somali Agricultural Girls Association way jiraan oo gabdhaha mid waxaa jiro oo guud oo ayna dhalinyarada beeraha ka baxday ku yihiin labadaba jawr xarumay ku leeyihiin waxay bixiyaan tababarray bixiyaan beeraleyda lagu tababaro sunta sida loo isticmaalo gargaarka degdega lacala qof inuu samoobo sunta qaabku maareyn lahaa iyo sunta sida loo isticmaalo waxay qoran tahay warqadda levelka loo yaqaano oo ku dahaaran sida loo akhrin lahaa iyo hadday talo u baahdaan in la soo xiriiraan marka aad ay dhalinyarada isu xilqaameen wayna dadaalaan ka sokow amniga guud oo wadanka aad u xun gaar ahaan dhanka koonfurta oo aad moodid inay ay ka lidato qeybaha kale ee dalka ee dhanka waqooyiga iyo marka laga soo tago dhanka waxaa jira dhibaatooyin kale oo dabiiciya way ka mid tahay roob yarida way ka mid tahay wabigoo marna gura marna fataha waxyaabahaas oo dhanna waxay dhibaato ku yihiin dhulkii beeraha marka arrimahaas iyadoo la kaashanayo heedaha caalamka sida hay-adda cunnada adduunka iyo dowladda Soomaaliya xilligan jirta sidee baa arrimahaasi loo maareyn karaa Soomaaliya marka la tilmaamayo waxaa la tilmaamaa inuu yahay wadan aad u kheyraad ka buuxa oo beerihii iyo dalagii iyo baddii intaba haysta laakiin ay jiraan dhibaatooyinka hadda iminkaan sheegay amniga ugu horeeya sidee marka arrimahaas looga hortagi karaa ilan cudur waxa la yiri waxa daaweyntiisa waxa ka horeeya in laga hortago adduunka iminka corona la tacaalaya laakiin anagu marka hadda ka hadlayna beeraha waxay u baahan yihiin waxaan oo dhan in laga hortago oo cashir laga qaato wixii dhacay sidee marka arrimahaas oo dhan loo maareyn karaa ما شاء الله وأرين وناكسن أريمه لبي كليهين دل كلابا أرين أي أوين أمني مثل كسوته برليد وحاها هاي أبار يو فتحاد حيجو مرني وأبار مرني وآرن وأنا لقى فإيسن مركا وحواي برليد وحاجة وحدي وحاجة قبكران من وحاجة متكبح حسن أي أبان أود معمول من أغاني أبان مدان وفتحاد سو فتحه فتحادها beeraleyda inta badan ma ku lahan laakiin waxay ku leeyihiin door ah kheyraad qaadasho waxaa jirto waxa la yiri nin walba madaxiisa meeraha ku xirtay oo fududaanaya qof kasta lagu maxri karo wabiga waxaa jira meelo gaagaaban oo biyaha ka soo baxo hadda jooro kale hadda meel sabuun yiraahdo ugu wacan oo meeshii biyaha marayeen waxaa ku xiran geedo waaweyn ku xiran geedahaas hadii la bixiyo fatahaada waa yaraan laakiin geedahaas ilaa laba xilliya ku jiraan biyihiina waxay dhaafeen gobolka shabeellaha dhexe waxay u gudbeen shabeellaha hoose marka si isxilqaan haddii sameeyaan oo fududaanaysa maamulka garab ku siiyo midda fatahaadda midda abaarta markii loo soo gudbo abaarta waxay leedahay u diyaar garoow laakiin ka hortag ma laha karto waa arrin rabbaaniya haddii loo soo diyaar garoobo beeraleyda kaad fiican sii dhigtaan waa abuur fiican sii dhigtaan waa loo gaashaaman karaa iyadoo dowladda wasaaradda qaybta beeraha ay kaashanayso oo si loo sameeyo saadaas in sanadka abaar tahay ina aaranta inkastoo dadka miyiga ay ku fiican yihiin cilmi falaga ay fiiriyaan xidigaha sanadka abaarta iyo aaranka ay wajahaan laakiin aanan qorin maxmed su-aal kaloo waxaa jirta runtii aan inta badan jecelahay inaan dadka beeraha maaragtay barta weydiiyo Soomaaliya 30 sano ugu dambeeyay waxaa dhex boodayay niman injooya ah hay-ada gargaar lagu sheego shacabka naftirkooda qaarkood aan u danaynayn dalkii dadkii dalka waxaa la keenaa sun beeraha lagu buufiyo suntaas xataa miro baa la keenaa oo aanay dadkii aqoonin oo la iskaga beerayo ubaxyo baajo la iskaga beerayo waxyaabahaasoo kan kale dhibaatooyin bay ku yihiin dhulkii beeraha sidee markaa adiga aragtidaada ay kula tahay waa looga hortagi karaa arrintaas waxaa looga hortagi karaa in la helo tijaabo in la helo wasaaradaha ku shaqo leh inay shaqadaas ay qabtaan waa shaqo maamul inay qabtaan waxay dalka soo galaya in la tijaabiyo si dalka wixii ka baxaya aniga waxa ognahay hadda Soomaaliya 3 sano u dhameysay waxa xoog la saaray wixii la dhoofinaya xoolaha waa la baaraa wadamada aan u dhoofino haddii ay cudurka dareemaas ku soo celiyaan waa xoog ku saarna anaga wixii aan bixinayno si u gudbaan inaan xoog saarno caafimaadkooda tayadooda laakiin inta taas bedelkeeda wixii anaga aan noo soo galayay tayadeeda xoog ma la saaro qof waliba waxa uu soo dhoofsada arrintaasna waa arrin muhiim waxaana mas'uuliyadda iskale dadka maamulka kaas hayo
wasaaradaha shaqadeedu tahay inay tayadaas ay fiiriyaan iyo deegaanka la ilaaliyo. ugu dambeyn anoo kaaga mahad celinayo maxamedow sidaad waqtigaagii noo siisay dhalinyaradiinan wadankii gudihiisa jaamacadaha xilligan ka jira wax ku bartay gaar ahaan qeybta beeraha ma jiraan wax xiriir iyo cilaaqaad ah oo idinka dhexeeya aqoon-yahanadii idinka horeysay kuliyadii beeraha jaamacadda ummadda soomaaliyeed ka soo baxay oo aad maaragtay aqoon iswadaarsi dhinaca kastaba ahaatee aad ka yeelataan arrimaha beeraha iyo sidii dhulkii soomaaliyeed beerihiisii loo horumarin lahaa xilligan iyo maaragtay mustaqbalka soo socdaba. maasha allah way jirtaa sax wey waa dadkii nagu horreeyey waa macallimiinteennii waa khibradeennii waa kala tala qaadanaa wixii tale iyo wixii tusaale waa isweydiinaa marka tacliinta ku jirnay iyo haddaba weliba barashada inta loo leeyahay barashada socotaa waa kala aragti qaadanaa wixii soo gudboonaado sidii looga hortagi lahaa sidii loo gaashaamo lahaa waxaas dhan waa iska wareysanaa hadda waxa ugu dambeysay anyaxa waa iska wareysanay sidii wax laga yeeli lahaa iyo sidii mar walba waa beerleyda dadka bartay beeraha inta badan way iska warhayaan dad aad isku xiran waa maxamed ugu dambeyntii aad baan kaaga mahad celinayaa sidaad barnaamijka noogala qeyb qaadatay maxaad maanta aad jeclaan lahayd inaad dadka ku dhageysanaya iyo maaragtay bulshada qeybaheeda kale aada u danaynaya bay-ada iyo deegaanka iyo beeraha inaad maanta aad u sheegto? waxaan jeclaan lahaa inaan la wadaago hal arrin inkastoo wax kasta muhiimkii laagtay ugu muhiimsan waxay tahay isticmaalka sumaha markii la isticmaalayo in loo tiro dalagga loo tiro deegaankan loo tiro sunta intaanan lagu shubin dhulka lagu shubin dadka aqoontooda la wadaago si lamid ah markii daawada aan soo gadano oo bini'aadamka isticmaalayo waxaan weydiisanaa dhakhtarka tale intaana isticmaalin si anaga u dhiman laakiin sumaha beeraha markii la isticmaalayo ma weydiino qof waliba aqligiisu isticmaala waxaan jeclaan lahaa dadka inay weydiiyaan talo dadka aqoon-yahanada beeraha intaysan sunta isticmaalin si naftooda ay u ilaaliyaan dalagga u ilaaliyaan deegaankan u ilaaliyaan. maxamed cumar cabdulle aad baad u mahadsan tahay sida aad maanta barnaamijkan noogala qeyb qaadatay deegaanka iyo bay-ada ee maanta idaacadda soomaali weyn fursad weyn u heshay in ay dhinacaas kaa wareysato waxaan ilaahay ka rajeynayaa in waqti kale oo intaa ka qurux badan aan kaa wareysan doono bal sida soomaaliya beeraheeda dib marka loo horumarin karo. mahadsanid. adaa mudan.